waa inaynu ahaanaa qofkaynu nahay. dadnimadu waxa ay ku jirtaa qofka intuu yahay qofka uu yahay. kuma noolaan kartid nolosha qof kale, sidoo kalena qofka kale noloshaada kuma noolaan karo. waxaad u baahan tahay in aad u noolaato sida ay noloshu u aragto si aad uga jawaabto waxyaabaha ay noloshu ku soo hordhigayso. waxaad nolosha maamulkeeda iyo maareynteeduba awood u yeelan kartaa markii aad isku kalsoon tahay. waa inaad isgarwaaqsataa. isgarwaaqsiga aad isgarwaaqsatay wuxuu kugu hagayaa guul iyo farxad joogto ah. qof waliba oo dunidan ku nool waxa uu leeyahay shakhsiyad u gaar ah oo uu kaga duwan yahay dadka kale, sida weji u gaar ah, dabeecad u gaar ah, habdhaqan u gaar ah. isaga mana jirto qof intaba la wadaagta dadka kale. iyagoo ay teesi jirto, ma iska yeelyeeli kartid qofka kale oo uu idiin dhexeeyo kala duwanaanshaha weyn. haddaba waa inaad ku baraarugsanaataa in noloshu bogog badan leedahay. waagii baryaba uu wato waayo u gaar ah iyo khibrado lagu xasuusto. qof waliba waxa uu leeyahay waayo u gaar ah oo uu mararka qaar markii lagu soo hadal qaado uu damqanayo boogo horay u soo gaaray qalbigiisa ama jirkiisa. haddaba maxaa sababay in uu qofku ahaan waayo qofka uu yahay? kow, hadallada lagu yidhaahdo qofka marka uu yaryahay oo ah midda ugu daran ee qofku ku keento niyajab weyn, kuna sababta in uu ismoodo inuu dadka ka hooseeyo ama uu ka liito. dadka soo barbaariya ama nolosha qofka ka qayb qaata inta uu koriimada ku jiro, sida waalidka ama qofka gacanta ku haya ama macalinka waxa baraya qofka. deegaanka oo iyaduna ah qaybta ugu muhiimsan saameyn weyna ku yeesha qofka noloshiisa. waxaad ogaataa in qofka dadka isla barbardhiga in uusan naftiisa ku kalsoonayn. haddaba ka hor isla barbardhig dadka kale, iskuna kalsoonow oo ahaw qofka aad tahay. waxaad helaysaa horumar iyo shakhsiyad wanaagsan.